Assalaamu calaykum. Kusoo dhawow daawada qaybta xigta ee macluumaadka ku saabsan afgambigii dhicisoobay ee dalka Turkiga. Waxa uu marayaa qaybihii ugu xasaasisanaa. Qaybtaana waxay ku bilaabanaysaa Ladiif Erdogan waxa uu sheegay in ururka Fadhullaahi Gulen uu door bido inuu aruuriyo carruurta da'da yar si ay wax u baraan, maskaxdoodana uga dhex koriyaan aragtidiisa ilaa ay gaaraan heer ay ku caqliyeystaan in xaqi iyo diinta kaliya ay jirtaa ay tahay tan uu sheegay nidaamka waxbarashada ee Gulen uu dejiyay. Waana sababtoo u yeeshay taageerayaal aqoon-yahana iyo dadka caadiga ah oo aan la soo marsiin karaynin war aan ahayn in Gulen uu yahay wadaad alla u go'ay oo u adeega diinta Islaamka. Cid kasta oo ka hor timaadana ay qalad tahay isla markaana si bilaa shaki ah iyo su'aalo aan iska weydiin ay dhaqsaba u fuliyaan wax kasta oo ururkaasi uu ka dalbado. Fadhullaahi Gulen marka ay barbaartaan iyo dadka kale ee ururkiisa ku soo daraya ay gaaraan heer ay ku aamini karayaan ururkaani in uu la galo wacad adag oo mid kasta loogu sheego in ururka uu daacad u yahay. Qof kastaana waxaa lagu dhaariyaa dhaar u gaar ah oo erayadeeda ay ka mid yihiin inuu ku xilo furayo xaaskiisa oo ay ka furan tahay haddii uu ka baydho ama uu ka leexdo Fadhullaahi Gulen. Xaaskayga waa iga furan tahay haddii aan Fadhullaahi Gulen khiyaameeyo ayaa ka mid ah erayada. Arrinta tan fududeysa ayaa ah in marka hore Fadhullaahi Gulen uu ku dadaalo in dadka ururkiisa ka tirsan ee ragga iyo dumarka ahi ay isguursadaan haddii ay dhacdo in nin ururkaasi ka tirsan uu gabar ka soo guursado dibadda ururka ama gabadha ay ka soo guursato nin aan ururka ahayn. Waxaa laga shaqeeyaa sidii ninkaasi iyo gabadhaasiba la isugu dari lahaa oo ururka lagu soo biirin lahaa. Marka hadhow ninka ama gabadhii laga shakiyaana lamaanihiisa ayuunbaa cadaadis ururkaasi laga saaraa in uu furo, isaga oo weliba arrintan iyo in badan u adeegsada ragga uu xaasaskooda ka furo haddii uu arko in jidkiisa ay ka leexdeen. Fadhullaahi Gulen isaga oo ka faa'iideysanaya xiriirka adag ee uu la lahaa sirdoonkii militariga dalka Turkiga waxa uu guryaha hogaamiyaasha waaweyn ee ururkaasi uu ku xiri jiray qalabka basaasida. Sidoo kale taleefankiisa ayaa laga dhageystaa si loo ogaado waxa uu ku hadlo marka aanay ururkaasi ayna la joogin, dadka uu la hadla ama uu la kulmaa iyo weliba xiriiradiisa oo dhan. Haddiiba ay dhacdo in lagu ogaado qiyaamo waa loo yeeraa oo loo sheegaa in ururka uu qiyaameeyey, kadibna xaaskiisa ayaa cadaadis lagu saaraa in ninkaasi iska furto iyada oo loo tusayo in uu diinta saxda ahayd uu ka weecday. Markana isku daygii guryo celinta. Ladiif Erdogan waxa uu sheegay in marar badan oo Mareykanka uu ugu tagay Master Gulen ama uu siyaabo kala duwan uu ula xiriiray in uu kula taliyo in dalkiisa Turkiga uu dib ugu soo noqdo maadaama aan wax dambi ah loo haysan, si loo soxo qaladaad badan uu arkayay in ururka Hismaad ay soo dhexgaleen. Laakiin arrintaasi waa uu ka diiday. Aakhirkiina markii uu dhowr jeer uu u tagay dalkaasi Mareykanka ayuu u kuurgalay, ayna u caddaatay in Fadhullaahi Gulen aanay ahayn ruux ku socda aragtidiisa iyo go'aanka maskaxdiisa ka yimaada oo kaliya, balse ay jiraan quwado shisheeye oo saameyn weyn ku leh. Inkastoo uu ku afeeftay in Fadhullaahi Gulen aanu ahayn nin si dhayala loo akhrisan karayo waxa uurkiisa ku jira marka laga tago dadka tirada yar ee sida aadka isugu dhowaadeen, gaar ahaanna howlaha ururka ay isku fahmeen. Markana CIA-da iyo dugsiyada Gulen. Ladiif Erdogan waxa uu wariye Axmed Mansuur u sheegay doodiisa inuu aaminsan yahay in Fadhullaahi Gulen uu Mareykanka u tagay cabsi uu ka soo wajahday gudaha dalka Turkiga darteed ama xitaa doonistiisii shakhsiga ahayd, laakiin Mareykanka uu ku dhiirigeliyay oo uu ku dhaliyay fikirka ah inuu dalkooda uu ku noolaado, iyadoo ujeedkuna uu ahaa inuu ka agdhowaado oo ay gacan ay ku hayaan ama ay la socdaan howlihiisa una adeegsadaan danahooda. Waxa uu sheegay in dugsiyada Fadhullaahi Gulen uu ka furtay 145 dal oo daafaha dunida ah ay ka howlgalaan basaasiin ka tirsan CIA-da oo iyagu Mareykanka gudihiisa iyo dalalkaasi kalaba howlo sirdoon ka soo qabta. Waxa uu si gaar ah u xusay in macallimiinta afka Ingiriisiga ku dhiga dugsiyada ay u badan yihiin basaasiin CIA-da u shaqeeya. Waxa uu ku dooday in aanay dhici kareynin in qof caadi ahi uu 145 dal oo dunida ah dowladaha ka taliya uu la yeesho galaangal u suurtagelinaya in dugsiyadiisa fasaxa uu ugu helo, laakiin arrintaasi ay u suurto gashay caawimo uu ka helay CIA-da darteed, islamarkaana ay u fududeyso waxyaabo badan. Meelaha sida aadka CIA-da uga caawiso waxaa ka mid ah dugsiyada waaweyn oo uu ka furtay dalalka bartamaha Aasiya ku yaala oo ay ka mid yihiin jamhuuriyado hore uga tirsanaan jiray Midowgii Sofiyeed sida Kazakhstan,
Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan iyo Afghanistan. dalalkaani oo dadka ku dhaqani ay ka badan yihiin 67 milyan oo muslimiin ah ayaa Mareykanka oo aan si kale inta u dhaxgali kareynin waxa uu doonayo in Gulaan uu ka dhigto wadada uu ku galayo si uu uga hortago Ruushka ugana carqaladeeyo awood ballaarsiga Ruushka. marka ay tahay dunida kale ee islaamka carabtuna ay ka mid tahay waxaa CIA-da Gulaan ay u fududeysay in dugsiyadan uu ka furto si ay iyaguna ugu fududeyso in dugsiyadan ay ku dhex beertaan canaasiir sirdoon ah oo ka warhaysa ururada iyo aragtiyada islaamka ee dalalkaasi ka jira. waxaana marar badan dhacda in dhaqdhaqaaqyada islaamka ee dalalkani ka jira ay xiriir fiican ay la yeeshaan maamulka dugsiyadan ay u arkaan dugsiyo islaami ah kadibna xogta isdhaafsadaan iyo macluumaadka laga helo taasoo si toos ah lagu gudbiyo CIA-da. arrimaha sii cadaynaysa muhiimadda Gulaan uu leeyahay Mareykanka waxaa ka mid ah in qofka dal kastaaba ha jooga ee taga safaaradda Mareykanka ee uu sheego in uu doonayo dalku galka Mareykanka isagoo u socda inuu Fatxullaahi Gulaan la kulmo in si toos ah oo fudud loo siiyo fiisaha Mareykanka iyada oo marka ay hubiyaan in ruuxa wadaadkaasi u socda ay siiyaan fiisaha oo waliba dadka qaarkood ay siiyaan fiisa furan oo muddo dheer oo marka uu doono uu dib ugu soo noqon karo Mareykanka isagoo aan fiisa labaad u qaadan. Ladiif Erdogan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu ka sheekayay qiso ka qabsatay fiisahan. markii ugu horreysay uu safaaradda Mareykanka ee dalka Turkiga ku taala ka codsaday fiisa una sheegay ujeedadiisa inuu Fatxullaahi Gulaan booqanayo waxa la siiyay fiisaha si furan oo marar badan oo dambe si joogto ah ugu tagi jiray isaga oo aan u baahan inuu mar kale fiisa u raadsado. laakiin markii ugu dambeysay oo ahay sanadkii 2006 isagoo hawada ku sii jira oo aan weli gaarin Mareykanka ayaa la laalay fiisihii. Ladiif Erdogan isagoo arrintaasi ka waramaya ayaa waxa uu sheegay in markii muddooyinkii dambe la bilaabay dadaal uu doonayo in Gulaan uu dib ugu soo celiyo dalkaasi Turkiga oo uu sheegay inaanay wax dhibaato ahi ay jirin si caadi ahna howlihiisa ugu wadan karo dalka gudihiisa maadaama aanu marka horeba uusan baxsi ku tagin dalka Mareykanka. waxa uu yiri muddo ayaan taleefanka kula xiriirayay aniga oo doonayay in aan ku qanciyo in uu iska soo noqdo laakiin ma aanan ogeyn in taleefankayga la dhageysto. aakhirkii waxaan go'aansaday inaan toos aan ugu tago oo aan hor fariisto si aan ugu qanciyo in dalkiisa uu dib ugu soo noqdo. markii aan howlihii ambabixiga dhamaystirtay ee aan si sharci ah fiisaha uga duulay dalka Turkiga ayaa intii aan hawada ku jiray la laalay fiisihii. markii aan Mareykanka ka degayna muddo hal saaca ayaa madaarka la igu xiray iyada oo la igu eedeeyay inaan argagixiso xiriir la leeyahay kadibna dib ayaa la igu soo celiyay fiisa dambana waa la ii diiday. sidaas ayuu yiri Ladiif Erdogan. waxa uu sheegay in Fatxullaahi Gulaan uu qaab maxbuus ahaan oo aan is ogeyn uu ku joogo dalka Mareykanka marar badan oo uu doono inuu dib ugu soo noqdo dalka xitaa oo mararka qaarkood waxa uu sheegay in si dadban ay uga hor istaageen safaradiisa iyaga oo marmarsiiyayaal kale u sheegaya ama u yeelayay. waxaana ka mid ahaa in marka hore ay arkeen inaanu doorkaasi uu baaqanaynin ay sii daayaan cajalada maqal iyo muuqaal oo si qarsoodi ah looga duubay Gulaan oo markaasi ka hadlaya damaciisa in uu rido dowladda Turkiga ka talisa. cajaladan ayaa qarsoodi loo siiyay telefishinada dowladda taageera taasoo keentay in markii la faafiyo Gulaan uu ku dhici waayay inuu ka soo noqdo dalka Mareykanka isagoo cabsi qaba in looga dhigo kiis maxkamad la soo horgeyn karayo taas oo Mareykanka uu ka duubay. mar walba uu isku dayo inuu dalka Turkiga soo aadana cajaladahaasi loo daaray. qaarkoodna waxay ahaayeen kuwa la faafiyay si ay cadaawad kale dadka Turkida ugu qaadaan. markana macluumaad kooban oo ku saabsan waxbar si aad u badasho. Fatxullaahi Gulaan waxa uu aaminsan yahay jiilka koowaad ee 25 jirka ka yar oo la hantaa ay tahay sida ugu fiican ee fikir ahaan looga dhigi karayo mid hirgala oo dhidaba adagna u taagan yahay. waxbarashada dugsiyada hoose ayaa uu kasoo bilaabaa isaga oo siiya duruus tayo leh oo waafaqsan manhajka Turkiga ama dalalka kale ee dugsiyada ay ku yaalaan. laakiin cidda dhigaysa ay tahay macallimiin u tababaran kasbashada quluubta carruurta una diyaar ah in waxbarashada ardadaasi ay ugu daraan barbaarin la xiriirta afkaarta Fatxullaahi Gulaan. Master Gulaan waxa uu aaminsan yahay in ubadka da'da yar ee maanta ee dugsiyadiisa uu ka soo saaray ay ka soo dhixbixi doonaan dad mansabyo sare leh oo ka gaara dhaqaalaha iyo siyaasadda ama hoggaanka dalalkooda kadibna iyaga ay noqon doonaan danjirayaal iyo wakiilo dadban oo faafiya fikirkiisa kuna sii tallaala jiilalka ka dambeeya. waana sababta uu Gulaan uu marka uu waxbarashadiisa muhiimadiisa ka hadlayay ururkiisa uu ku yiri dunida ku kala faafa oo dugsiyo waxbarasho furta haddii aad mid dhistaan mid kale ku dara 2 dugsi 4 ka dhiga 4tana 8 ka dhiga. sidaas ayuu yiri Master Gulaan. markana
nolosha Gulen ee Mareykanka. Fadxullaahi Gulen waxa uu ku nool yahay gobolka lagu magacaabo Pennsylvania ee dalka Mareykanka, waxaana uu degan yahay qasri aad u weyn oo isagu uu leeyahay. Gulen xaruntan uu degan yahay waxay u furan tahay oo jooga oo ugu yimaada halkaasi dadyow kala duwan. Waa xarun u furan martida daafaha dunida oo si joogso ugu timaada si ay ula kulmaan imaamka. Qasrigan oo ku fadhiya dhul aad u ballaaran oo u xiran, waxaana dhismaha ama goobta uu ku yaalo kasii dhisan guryo 2 dabaq ah oo midkiiba uu ka kooban yahay oo uu dejiyo marti aad u tiro badan si joogtaana ugu tagta. Tani markii Gulen uu degay dalka Mareykanka sanadkii 1999 waxa uu deganaa gurigan oo xitaa qolka uu ka degan yahay aanu mar kaliya uuna bedelin. Dabeecadihiisa yaab kale waxaa ka mid ah inaanu qolkiisa uusan ka bixin marka laga tago xilliyada uu salaada uu soo dukanaya iyo saacad iyo bar oo maalin kasta banaanka qolkiisa uu ku qaato. Dhinaca habdhaqankiisa markii aynu eegno Gulen intii uu jooga dalka Turkiga wuxuu si aad ah u muujin jiray inuu xiiso uusan u qabin siyaasadda iyo dadkeeda, isla markaana waxa kaliya hamigiisa buuxiye uu yahay inuu u adeego diinta Islaamka. Isaga oo dadka ku gaarsiinaya waxbarasho iyo wacdi, wuxuu aad u ilaalin jiray in uu la kulmo siyaasiyiinta iyo dadka ku lugta leh arrimaha siyaasadda iyo xitaa dadka aan ururkiisa ka mid ahayn, laakiin habdhaqankaasi waa uu bedelay. Markii uu tagay Mareykanka wuxuu bilaabay inuu la xiriiro oo kulamo kala duwan uu la qaato siyaasiyiin Turki ah iyo weliba mas'uuliyiin kala duwan oo Mareykanka ah. Sida uu Ladiif Erdogan uu sheegay isbedelada uu ku arkay Mr. Erdogan markii uu Mareykankaasi uu ku booqday waxaa ka mid ahaa in wadaadka uu si joogto u la kulmayay siyaasiyiin iyo mas'uuliyiin dowladeed, waxaana xaruntiisa ku kala bixi jiray mas'uuliyiinta dowladda Mareykanka u qaabilsan arrimaha Turkiga, gaar ahaan mas'uuliyiinta wasaaradda arrimaha dibadda iyo CIA-da u qaabilsan arrimaha Turkiga. Isaga qudhiisa ayaa ii sheegay inuu u tago wakaaladahan Mareykanka ah oo bil kasta uu xog waran u gaarsiiyo, yacni warbixin bil ah ayuu u geyn jiray. Sidaasi waxaa sheegay ku-xigeenkiisii hore Ladiif Erdogan. Gulen doob 75 sano jir ah. Fadxullaahi Gulen oo hadda da'diisu ay tahay 75 sano weli ma aanu guursan. Dadka arrimaha shakhsiga ka faallooda waxay arrintan ay ku sababayaan aragtidiisa dhinaca suufinimada uu la wadaago oo aad u badan, taas oo ah in ruuxa uu guursado cibaadada iyo adeegista diinta Islaamka. Fadxullaahi Gulen oo hadda da'diisu ay tahay 75 sano jir weli ma aanu guursan. Dadka arrimaha siyaasadda iyo shakhsigiisa ka faallooda waxay sheegaan in arrintan ay ku sababeynayso aragtidiisa dhinaca suufinimada la xiriirta. Fadxullaahi Gulen, Ladiif Erdogan ayaa waxa uu ku sheegay sabab kale oo uu guursan waayay, taas oo ay tahay in Fadxullaahi Gulen uu guursan waayay. Waxaan anigu aan ogahay in Fadxullaahi Gulen yaraantiisii uu ku dhacay cudur cuncunka maqaarka ku dhaca, kaas oo siduu ii sheegay suxun uga dhacay inta u dhaxaysa jilbaha iyo xundurta, dhaawacna ku keenay jirkiisa oo qaybahaasi u badan. Marka anigu waxaan isleeyahay waxaa suurtagal ah in dhaawacyo xilligaasi soo gaaray awgeed aan u guursan karin. Sababta kale ay Ladiif Erdogan ay la tahay in saaxiibkiisii hore Fadxullaahi Gulen aanu guursan kari waaye in uu isku dayaa ay tahay Badiicu Zamaan ama Siciid Nuursi oo ah shiiqa dariiqada oo bilowgii jidkiisii uu raacay, maadaama aanu Nuursi guursan weligii ayna suurtagal tahay in Fadxullaahi Gulen qudhiisa uu doonayo in sidaas oo kale uu yeelo. Markaana aan eegno saaxiibtinimadiisii Erdogan. Fadxullaahi Gulen oo bilowgii geedigiisii ku furay halkudhigga ahaa acuudu billaahi min ashaytaani rajiim wa siyaasa, oo micnaheedu uu yahay waxaan alle ka magangelayaa shaydaanka nacdaladan iyo sidoo kale siyaasadda, isla markaana aan abidkii xisbi siyaasi ah aana samaysan ama aana ku biirin, dadkana u sheegayay in dhibta ugu weyn ee Turkiga casriga ah haysataa aanay ahayn siyaasad xumo oo ay tahay jaahilnimo shacabka haysata, sidaasi aaweed cilmiga la xoojiyo, haddana mar kaliya siyaasadda faraha uusan kala bixin. Isaga oo ka duulaya aragtidiisa ah cilmiga hal la xoojiyo ayaa waxa uu furay hay-ad waxbarasho iyo sidoo kale mid barbaarineed oo uu bixiyay hizmeed, isla markaana daruus kala duwan uu ka bixinaya masaajidda, muxaadarooyin iyo wacdiyo isaga dadka uga ooyiyana ay halkaasi uu ka soo jeedin jiray, laakiin aakhirkii jidkaasi waa uu ka leexday. Dugsiyadii waxbarasho oo ahaa kuwa tayadooda ay aad u sarreyso oo lacag ah iyo adeegyadii uu qabanayo ururkii Hizmaad ayaa aakhirkii isu bedelay imbaraadoriyad aan la loodin karaynin oo leh ugu yaraan 5 shirkadood oo aad u waaweyn oo nooca shirkadaha afka Ingiriisiga lagu yiraahdo holding companies oo ka shaqeeya iibsiga iyo sidoo kale sii iibinta saamiyada shirkadaha sumcadda leh ee kale. Sidoo kale waxa ay imbaraadoriyadaasi ay yeelatay in ka badan 9,000 oo shirkadood oo nooca dhexe ah,
tiro bangiyo ganacsi oo waaweyn iyo tobannaan qalabka warbaahinta isugu jira dhammaan noocyadiisa kala duwan sida idaacado, telefishinno, wargeysay iyo majalado. Intaas oo kaliya ma ahan Hismeed, waxa ay leedahay 17 jaamacadood, 96 shirkadaha ka shaqeeya fududeynta deyminta lacagaha iyo sidoo kale iska bixintooda, 900 oo jimciyadood, 10 dugsi oo Turkiga dibadiisa ku yaala iyo kuwo kale. Ganacsiyadaasi iyo hay-adahaasi kala duwan ee Fadxullaahi Gulen waxay u suurtageliyeen in maanta uu maamulo miisaaniyad gaaraysa 150 bilyan oo dollarka Mareykanka ah oo sanad kasta ah. Imbraadoriyadaasi firfircoon ee awoodda leh dhammaantood dhinacyada kala duwan ee bulshada oo ay ka mid yihiin arrimaha bulshada, dhaqanka iyo dhaqaalaha kadib waxaa muuqatay in ururka Hismaad ay garwaaqsadeen in la gaaray xilligii ay xoojin lahaayeen dariiq cusub oo lagu gaarayo ujeedadiisii u dambeysay ee ah in la dhiso dowlad islaamiya oo ku dhisan aragtida wadaadka Gulen, laakiin haddana weli si qarsoodi ah ayaa ay howlahoodii ay u wataan. Fadxullaahi Gulen waxa uu ka bilaabay geedigiisa siyaasadda inuu dhex gala dhammaan hay-adaha dowladda, gaar ahaana kuwa ammaanka, booliiska, garsoorka, sirdoonka iyo militariga, iyo sidoo kale kuwa adeegyada bulshada bixiya oo ay waxbarashada ugu mudan tahay. Safiirka Mareykanka u fadhiya dalka Turkiga 2009 ayaa isaga sida muuqata isaga oo dareemaya awoodda kooxda Fadxullaahi Gulen iyo sida ay waxyaha dowladda ugu dhex beermeen. Mar uu ka hadlayo arrintaasi waxa uu yiri, ma jiri karo qof kaliya oo ka shakiya runta ah in ururkani dowladda awood uu ku dhex samaystay. Awooddaas ayaa safiirka iyo kuwa kooxda Gulen waxay u suurtagelisay sida uu sheegay in xitaa garsoorka aanay tallaabo ka qaadi karaynin ururka iyo dadkiisaba. Dilaaca ugu horeeya ee kala durgiyay Erdogan iyo Mr. Gulen, isla markaana xukuumadda cadaaladda iyo horumarinta tusiyay sida awoodda Gulen xoog ay ugu dhex leedahay dowladda Turkiga, waxaa si weyn uu u ballaadhay markii garsoorayaal ka mid ah ragga Gulen ay ku dhex beertay waaxda garsoorka ee dalkaasi Turkiga ay bilaabeen qorshe ay ku doonayaan in xabsiga ay ku dhigaan agaasimaha guud ee sirdoonka dalka Turkiga oo sida aan hore uga soo warranay ahaa ninkii Israa'iil iyo Mareykanka ay u arkayeen inuu caqabad ku yahay saameyntii ay Turkiga ay ku lahaayeen. warqad yeeritaana ah oo bishii February 2012 xeer ilaalintu ay u soo jartay taliyaha Hakan Fidan ayaa Erdogan waxa uu ku baraarujisay halka uu xaalka uu marayo, taas oo keentay inuu Hakan si adag uga digo inuu tago xeer ilaalinta u yeertay. sanad kadibna bishii December 2013 ayaa uu dhacay iskorimaadkii ay xukuumadda Turkiga ku tilmaamtay afgambigii garsoorka oo la aaminsan yahay inuu ahaa qorshe Gulen iyo raggiisii ay doonayeen inay garsoorka u soo maraan afgambiga Erdogan. laakiin dhacdooyinkaasi oo dalka Turkiga gilgilay waxaa ka horeeyay mudaaharaadkii beerta Chashi ee bishii shanaad 2013 iyo ugu dambeyntii isku daygan afgambi. waxyaha dowladda ururka Gulen ku guuleysatay in awoodda waaweyn uu ku yeeshay waxaa ka mid ahaa arrimaha gudaha iyo meelo kale. halka ay noo joogto qaybtan oo ku saabsan afgambigii dhicisoobe ee dalka Turkiga. qaybta xigtana waxaan ku eegi doonaa awoodaha ay Fadxullaahi Gulen iyo ururkiisa ay ku yeesheen iyo qaabka ay u dhexgaleen arrimaha gudaha, garsoorka, cadaaladda iyo ciidamadaba. qaybta xigta inta ku kulmi doona nabadgelyo. buugani waxaa tarjumay Kamaal Axmed Cali.